cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka Khartoum State oo in muddo ah ku jiray tababar ayaa waxaa maanta tababarkaasi lagu soo gabagabeeyay degmada Boocame oo hoos timaada gobolka Sool. xafladan ballaaran ee loo qabtay ciidamadan tababarka dhameystay isla markaana diyaarka u ah xoreynta deegaanadooda cadawga haysto ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Khartoum, golaha sare ee dhaqanka maamul goboleedka Khartoum State iyo waliba bulshada ku dhaqan degmada Boocame. ciidamadan ayaa wajiyadooda waxaa laga dheehanayay farxad aan la soo koobi karin. waxaana halkaasi ugu horeyn ka hadlay wasiirka amniga dowlad goboleedka Khartoum State Maxamed Ducaale Cabdi. maanta aanu isugu nimid sidaad arkayseen in aanu xidhno tababar ciidan oo muddo socday. ciidankaas oo ka tirsan cutubyada ciidamada Khartoum State of Somalia, gaar ahaan kuwa hadda ku sugan soonaha Boocame iyo Laascaanood. ciidankaas oo tababarkiisu muddo socday ayaanu soo gabagabaynay maanta. waxaanu markaa hambalyo u diraynaa dhammaan intii ka qayb qaadatay, saraakiisha, saraakiil xigeenada, dableyda iyo intii xidhitaankiisa nagu sharaftay nagala soo qayb gashay. isimadu ay ka mid yihiin isimada, waxgaradka, culimada iyo aqoon-yahanada. ma aha markii ugu horeysay ee cutubyo ka tirsan Khartoum State uu dhammaaday tababar loo xidhay. kuwana way socdaan, kuwa horena way dhammaadeen. taasoo macnaheedu yahay inaanu tayeyno ama qiimo u samayno ciidamada Khartoum State, kuwaas oo diyaar u ah xoreynta dhulkooda, inay ka xoreeyaan maleeshiyada ka timid Hargeysa ee dhibaatada ku haysa shacabka reer Khartoum, ha noqdo dilka, xariga, kufsiga, boobka iyo dibindaabyada joogtada ah. taasoo ayan ciidamada Khartoum u dul qaadan doonin maanta kadib. waxaanu u sheegaynaa dadka reer Khartoum meel kasta oo ay joogaan in ay awood u leeyihiin maanta inay ku kalsoonaadaan oo ku farxaan oo moralkooda ku dhisaan ciidankooda Khartoum inuu yahay mid ku filan, soona celinaya magacoodii iyo sharaftoodii iyo karaamadoodii ay lahaan jireen, dhulkoodana uu ka xoreyn doono cadowgaas maleeshiyaadka SNM ku soo duulay. waxaan intaa ugu daraynaa geed walba iyo gegi walba iyo tog walba iyo boor walba waanu joognaa. Laascaanood baanu joognaa, Xudun baanu joognaa, Yagoori baanu joognaa, intaba waanu joognaa. gudaheedaanu joognaa, u hooyanaa, ku jirnaa, seexanaa, abaabul ka wadnaa, hawshuna ay ka socotaa, xoreyntuna ay ka socotaa. waxaanu ku ballan qaadaynaa Rabbi subxaanahu wa ta'aala hadduu noo fududeeyo muddo yar oo kooban oo wiigaga 2 wiig 3 wiig inaanu kaga takhalusno ama kaga dhammayno dadkaas maleeshiyada ee cagaha ku soo duulay dhulka inaanu ka saaro. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ciidan dafcadii lixaada oo tayadiisu iyo direyskiisu iyo muuqaalkiisuba uu sidan yahay. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaanu kala soo qayb galno xiritaanka dafcadda tababarka. aad baan ugu faraxsanahay, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. ay farxad weyn tahay goobtan aynu joogno, iyadoo madax dhaqameedyadeennii, qoorteennii, maamulkii, wasiiradii dhammaan aanu joogno goobtan xiritaanka
دفعة اللحاد إذا ما خاتمه saasoo kale farxad weyn bay tahay inaan ka soo qayb galo xiritaankan loogu xirayo dafcadii lilxaad ee ciidanka khaatumo iyadoo aan aniga markii ugu horeysay inaan ka soo qayb galo waxaan aad iyo aad ugu kalsoonahay anigoo ka duulaya tayada ciidanka iyo tirada iyo saanada in ujeedadii la idin sameeyay aad ka gungaadhaysaan oo ah inaad soo celisaan dhulka aynu leenahay ee maqan ee cadowgu haysto ku soo duulay ee xaqdarrada ugu soo duulay kaliya waxaan idiin sheegayaa dadku idinku idin sugaya nin lagu seexdo seexan dadku idinka ku seexanaya hadduu isii yahay hadduu caruur yahay hadduu maata yahay hadduu xoolaha raaco idinka ayuu idinku hurdaa idinku seexan ciidamadii ee khaatumo ayaa dadku ku hurdaan ama ha joogan hawd ama ha joogan boocame ama nugaal ha joogan kaalinta aad leedihiin aqoonsada ogaada dad lagu hurday inaad tihiin waxaa la yidhaahdaa ciidankan guutada danab gaaska shanaad aagga boocame weeye ee khaatume state of Soomaaliya marka waxaanu anigoo u ah taliyaha aagga oo aad ii taqaaniin dadka badan maxamed aadan geele ama naanaysteedu tahay curi waxaan ballan qaadaynaa cadowga ku soo duulay gobollada iyo Sool iyo Sanaag in aanu kaga saari doono gacan bir ah oo xooga isku soo wada duuba mas'uuliyiintan ka soo qayb galay goobtan ciidamadan tababarka loogu xidhay ayaa waxaa laga dheehanaya wajiyadooda farxad aan la soo koobi karin. Cabdicasiis Aadan Jaamac, Darwiish TV, degmada Boocame.